bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena maanta. qodobada xiisaha badan ee aad maanta barnaamijkeena intuu hawada ku jiro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo qirtay in askartiisa ay dileen shacab Soomaaliyeed gudaha dalkeena Soomaaliya. madaxweyne Erdogan oo soo farageliyay dagaalka ka socda Tigray muxuuse u ballan qaaday Abiy Ahmed. maxaa keenay dib u dhaca ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran, iyo sidoo kale madaxweyne Joe Biden oo si lama filaana u sheegay in Mareykanka ay sii joogi karaan gudaha Afghanistan. sidoo kale madaxweynihii cararay ee Afghanistan oo iska dhiibay dal ka mid ah khaliijka. qodobada iyo kuwa kaloo xiiso badan ayaad maanta barnaamijkeena ku daawan doontaan daawadayaasha aynu jecelnahayo. waa maalinimo khamiisa, taariikhdu ay ku beegan tahay 19 Agost sanada 2021. iminkase kusoo dhawaada qodobadii aan idin sheegnay oo faahfaahsan. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa markii ugu horeysay qirtay in askartooda howlgalka AMISOM u jooga gudaha Soomaaliya ay dhowaan dad rayid ah ay ku dileen gudaha Shabeellada Hoose. Museveni ayaa sheegay in ciidamadu ay dil ka geysteen xilli ay caraysnaayeen, isagoo shaaciyay in la xiray askartii dilka geysatay isla markaana dacwad lagu soo oogi doono. waa sida uu sheegay. dhowaan waxaana soo gaaray kiis la xiriira dil Soomaaliya ka dhacay. koox ka mid ah askarteena ayaa dad laayay. dhammaan xubnihii falkaasi ka dambeeyey waa la xiray, dacwad ayaana laga soo gudbiyey, ayuu yidhi madaxweynaha Uganda. sidoo kale waxa uu sheegay in magdhow ay siin doonaan ehelada dadkii ay ciidamada dalkiisu ku dileen gudaha Shabeellada Hoose. toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidan ka tirsan kuwa AMISOM, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Uganda, ay dad shacab ah ku rasaaseen qaybo ka mid ah gobolkaas kadib markii qarax miino lagula eegtay agagaarka Shalambood. waxaana xilligaas ay galeen beer ay ku sugnaayeen 4 shaqaale iyo ninkii iska lahaa. sidoo kale waxa ay soo wada qabteen 2 darawal, kuwaasi oo hal goob ah isugu geeyeen ayna rasaas ay ku laayeen. waa sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha deegaanka Shalambood ee gobolka Shabeellada Hoose. inta badan ciidamada AMISOM ayaa dilal iyo tacadiyo kale u geystay dadka shacabka ah xilliyada ay weerarada gaadmada ay kala kulmaan dagaalyahanada Al-Shabaab. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii yaboohay inuu gacan ka geysanayo inuu dhexdhexaadiyo sidii loo soo gabagabayn lahaa dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Erdogan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo booqasho ku tagay Ankara inay muhiim tahay nabadda iyo sharafta dalka ay dagaaladu ragaadiyeen. haddii ay xaaladdu sii xumaato waxay saameynaysaa dhammaan dalalka gobolka, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan oo shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo Abiy Ahmed. Turki ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo aan wadno aan u tabarucno xal u helidda dhibaatada oo ay qayb ka tahay dhexdhexaadin, ayuu yidhi Erdogan. Ankara iyo Addis Ababa ayaa leh xiriir saaxiibtinimo, waxaana labada hogaamiye ay wacd ku mareen inay xoojiyaan iskaashiga dhaqaale iyo mid ganacsi. Abiy ayaa sheegay in xiriirka labada dal lagu dhisay isqadarin iyo is-aaminaad, hase yeeshee labada dal kuma aysan dhawaaqin wax heshiisyo ah oo gaar ah oo ay gaareen intii lagu guda jiray booqashadii Abiy ee Ankara. Abiy Ahmed ayaa toddobaadyadii dhawaa wajahayay cadaadis xoogan kadib markii ciidamada Tigray ee TPLF ay dib ula wareegeen gobolka, sidoo kalena ay ku sii siqeen gobolada dariska la ah. maxaa keenay dib u dhac ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran? magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa qorshe u ahaa in maanta oo ku beegan 19 Agoosto uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran, kaas oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. dib u dhaca ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu sababay safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku aaday dalka Masar oo ilaa iyo hadda uu ku maqan yahay. sidoo kale waxaa weli caasimadda soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada oo iyaguna imaanshiyahooda Muqdisho dib ugu dhigay sababo la xiriira safarka ra'iisul wasaare Roble. shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah ayaa waxaa iclaamiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo aaladda Zoom-ka kulan kula yeeshay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale doqa magaalada Muqdisho. intiisa badan waxaa shirkan hadda uu qabsoomi lahaa diiradda lagu saari lahaa diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka iyo miisaaniyadda doorashooyinka sanadkana aynu ku guda jirno ee 2021.
wararka ayaa intaasi kusii daraya in shirka lagu soo qaadi doono dib u dhaca ku yimid jadwalkii doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka maadaama laga daahay. doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo maray marxalado ka duwan iyo isjijiid muddo soo taagnaa oo sababay in doorashada lagu qaban waayo xilligii loo asteeyay. madaxweyne Biden oo si lama filaan ah u sheegay in Mareykanka ay sii joogi karaan gudaha Afghanistan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay sii joogi karaan wixii ka dambeeyay 31 Agoosto oo ah waqtiga kama dambaysta ay qabsadeen inay uga baxaan haddii lagama maarmaan ay noqotana in dadka Mareykanka laga soo saaro gudaha dalkaasi. dadka Mareykanka waa inay fahmaan inaan isku dayi doono inaan soo dhamaystirno ka hor 31 Agoosto haddii ay muwaadiniin Mareykan ay baaqi ku sii yihiin gudaha dalkaas markaas waa sii joogi doonaa ayuu yiri Biden. qiyaastii 15,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa weli ku sugan gudaha Afghanistan xilli ay kooxda Taliban ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta dalkaas maalinkii Axadii. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in 4,500 oo askar Mareykan ah ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kabul, isaga oo ka hadlayay qaska iyo jahwareerka ka dhacay Afghanistan ee ka taagan soo daadgureynta dadka Mareykanka iyo dadka reer Afghanistan ee la shaqeeyay. ayaa Biden waxa uu sheegay inaysan jirin si loo fogaan karay qalalaasaasi. Biden ayaa hore u sheegay in si qoto dheer ugu murugooday sida xaaladdu isu bedeshay, wuxuuna ballan qaaday inuu difaaci doono xuquuqda haweenka Afghanistan oo hadda wajahaysa soo laabashadii xukunka Taliban. hase yeeshee waxa uu si gambasho aan lahayn ugu adkaystay inuusan ka qoomamayn doonin soo saarista ciidamada Mareykanka inkastoo aad loogu dhaleeceeyay qaskii ka dhacay halkaasi. waa tahay daawadayaal, weli barnaamij wareedkeeni ayaynu ku guda jirnaa. iminkase madaxweynihii ka cararay ee Afghanistan oo isku dhiibay dal ka mid ah khaliijka. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in sababo bini'aadanimo ay u martigelinayso madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani kadib markii dalkiisa uu ka cararay xilli ay qabsadeen kooxda Taliban. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Imaaraadka Carabta waxay xaqiijinaysaa in dalka ay ku soo dhaweysay madaxweyne Ashraf Ghani iyo qoyskiisa sababo la xiriira bini'aadanimo dartooda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Imaaraadka Carabta. Ghani ayaa Afghanistan ka cararay Axadii kadib markii Taliban ay ku soo dhawaadeen Kabul ka hor inta aanay kooxda soo gelin magaalada oo iyadoo aan la kulmin wax iska caabin ah. qoraal uu ku daawacay Facebook ayuu Ghani ku sheegay in Taliban ay ka guuleysteen isla markaana uu dalka uga cararay si looga baaqsado dhiig daata. halka uu ku sugan yahay ayaa horey loo ogeyn ilaa iyo maanta, waxaana warar la isla dhexmarayay ay sheegayeen inuu cararay Tajikistan ama Uzbekistan. tani ma noqon doonto markii ugu horeysay Imaaraadka Carabta oo gacmo furan ku soo dhaweeyo hogaamiyaal hore iyo qoyskooda oo ka soo cararay dalkooda. sanadkii 2017 Imaarada Dubai ayaa martigelisay ra'iisul wasaarihii hore ee Thailand Yingluck Shinawatra oo lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah isagoo maqana ah. daawadayaasha aynu jecel lahayo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij wareedkeena maanta oo aad ku daawateen qodobo badan oo xiiso badan. tan inta aan barnaamijkan la mid ah aynu ku kulmi doono waxaynu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.